soo dhawaada diyaaradii ugu horeysay dawlad goboleedka Jubbaland wadada reer Jubbaland ay leeyihiin way soo qaad taasoo horumar u ah shacabka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faani karaan madaxweyne Farmaajo aan u maleynay inuu noogu soo hambalyeyn doono kulay wuxuu mudan yahay inuu noogu soo hambalyeeyo waftiga inoo yimid iyo diyaaradda shacabkiisa iyo dawlad goboleedkiisa ay heleenba waxaan ka filayna waa inuu noogu soo hambalyeeyo magacaygu waa Gariiqaan Cawl Cabdooli Maxamed kamida shacab weynaha reer Jubbaland qaar ahaan caasimada ku meel gaarka ee Jubbaland ee Kismaayo ku sugan waxaan aad ugu faraxsanahay una soo dhaweynaynaa isku tashiga iyo isku xirnaanshaha iyo isku duubnaashada Jubbaland inoogu timid diyaarad inoo gaara oo anagu aan leenahay oo reer Jubbaland ay leeyihiin diyaaraddaas oo ah maamul goboleednimadii ugu horeysay ee yeesha diyaarad ku meel gaaro ayaga ay leeyihiin aad baan ugu mahadinaynaa madaxdeena iyo mas'uuliyiinta iyo dadka reer Jubbaland ee har iyo habeen isku tashiga iyo isku xirnaanshaha iyo iska warhaynta u taagan arintaas ay Ilaahay ka sokow waxa gacan weyn oo marnaba lam iloowaana ka geystay madaxweynaha maamulka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo tusay dadkiisa iyo shacabkiisa iyo waxooda idil inay isku duuban yihiin oo isku tiirsan yihiin reer Jubbaland maanta waxay haystaan diyaarad waa maamul goboleed Carduna oo maamul goboleed ayaga la midka ahaa meeshii marayaan in xaaladii joogan la ogyahay laakiin anagu nasiib wanaag maanta waxaan haysanaa diyaarad aan anagu leenahay si bareefad u shaqaynaysa even hatta kuwii inaga horeeyay ama goon isbitaaga kuwa sheeganay hatta aysan maanta haysanin taana waxay ku timid qof walba oo mas'uul ah ama Soomaali ama reer Jubbaland uu ogyahay waa isku tashigeena isku duubnideena iyo isku xirnaashaheena dadkana waxa la yiraahdaa haday isku duuban yihiin wax walba way qabsan karaan annaga tusaale u ah maxaa yeelay maanta waxaan haysanaa diyaarad annaga inoo gaara oo aan haysano oo magaceena ku socoto oo ku soo degaysa oo hawadeena maraysa taa marka waxay saacidaysaa in khayraadkeena iyo horumarkeena aan u wada qabsan karno wada jir waxaan rajaynayaa maamul goboleedyada kalena inay isku tashigaas iyo isku xirnaashadaas iyo isku wada jirkaas ay nooga dayan doonaan waa wax lagu daydo laguna faani karo inaan leenahay reer Jubbaland ahaan ka shacab iyo madaxweyne iyo mas'uul intaba oo madaxweynaha nagu hogaamiyo maanta inaan haysano diyaarad annaga inoo gaaro inoo bareefada inoo shaqaynaysa aad baan u soo dhaweynaynaa magacayga waa Maxamed Cali Kalaay oo ku dhaqan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbaland ee magaalada Kismaayo mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waan soo dhaweynayaa waxaan leeyahay madaxweynaha Jubbaland hambalyo waxaan leeyahay diyaaradda uu ku soo kordhiyay Jubbaland gobolka Jubbaland aad baan ugu faraxsanahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliyeed wuxuu saaray dalka cunuqabateen aad baan ugu xumahay cunuqabateenka asaga uu saaray wuxuu saaray shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Jubbaland muuse saarin shakhsi muuse saaray gobolka Jubbaland ayuu saaray cunuqabateenka asaga ah madaxweynaha aad baan ugu xumahay inuu saaro dalka ee ku sameeyo cunuqabateen run ahaantii madaxweyne dalka adiga ayaa madaxweyne u ah in shacabka ku dhaqan Kismaayo in aad ka qaado cunuqabateenka ee aad ku hayso Jubbaland ayaan mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ba ku leeyahay madaxweynaheena ee Jubbaland gobolkeena Jubbaland waa gobol iska aad iyo aad u wanaagsan maxaan ku yiraahdaa xagga amniga xagga maxaan ku yiraahdaa ganacsigiisa aad baan maxaan ku yiraahdaa lagu faraxsan yahay magacayga waxa la dhahaa Diiriye Cabdi Tigre waxaan aad ugu hambalyeeynaa oo u soo dhaweynayaa diyaaradda ay Jubbaland keensatay iyadoo oo cunaqabateen la saaray dadka Jubbaland iyo haweenkii iyo maatooyinkii iyo umulihii ay isla cadibmeen sida la aligeed Jubbaland maadaama ay diyaarad keensatay waxaan aaminsanahay dadkeeda iyo dalkeeda inay si fiican ugu shaqaynayso kadibna ay maraakiib iyo la iman doonto waxyaabo kale oo ka waaweyn iyadoo oo dadka iyo bulshada eegaysa waxa la wixii dhibaya ka hortagaya sida la aligeed waxaan leenahay maamul goboleedyada iyo dawladda federaalkuba iyaguna sidaas oo kale dadka inay u naxaan ka qayb qaataan horumarka iyo wada tashiga iyo wax qabsiga assalaamu calaykum marka hore Saciid Muuse Axmed Cali waxaan nahay shirkadda dadka ka shaqeeya shirkadda xalwada baasinta ee magaalada Kismaayo ugu weyn diyaaradaha maadaama waqtiga hore la xiray saameyn badan dadka qaas ugu leedahay dadka waxa waaye xalwada maadaama aan nahay dad badan oo xalwad laga gato
oo naloo qaaday dalka Kenya iyo Muqdisho iyo socodka markuu dambe xalwadii dhan badan ay joogsatay maadaama hadda la furay socodkii ay ku soo laabanayso xalwadii iyo qaadisteeda shaqadeeda sidii hore maadaama haddana aysan la furay diyaaradda ee maati Jubbaland ay leedahay marka isku ganacsadeeda iyo shacabkeeda iyo maamulka diyaaradda ayaga qaas ay leeyihiin oo baahiyada cunaqabataanka iyo baahiyada kale ka asturto guud ahaan dadka xanuunsanaa iyo xalwadii iyo dadka kulli saameynta ku lahaa way ka baahi tiraysaa ayaan isleenahay waana arrin lagu farxo shacabka dhammaan ganacsatada iyo ummadda xanuunsan oo socodkeeda Dhoble iyo Kismaayo Afmadow iyo Kismaayo sidii dadka oo caafimaadka oo fiican rabay isbitaalka weyn Kismaayo si degdeg loogu keeno diyaaraddaas waxay ka qabanaysaa baahi weyn waxtar weyn u lahaanaysaa khaasatan Jubbaland socodkeeda anigoo magacaygu yahay Faadimo Cali Faarax kuna nool Jubbaland gaar ahaan magaalada Kismaayo aragtidayda haddii aan ka dhibto madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cunaqabatayntii uu ku soo rogay Jubbaland wayna saamaysay maxay tahay bukaanadii baa meel aan u qaadanay aan weynay marka waxaan ugu baaqayaa madaxweynaha dalka asaga madaxweynaha waa ka daayo cunaqabataynta midda labaad diyaaradda Jubbaland ay soo gadatay madaxweynaha Jubbaland baan uga mahadcelinayaa marka koobaad marka labaad waan ugu hambalyeeynaya madaxweynaha Jubbaland inuu gaaray go'aankii kama dambaystahayd ee uu qaatay shakhsi ahaantiisa waan soo dhaweynayaa calaa kulli xaal warkayga diyaaraddana waa diyaaraddanadii shacabkanaga inay u adeegtaan loo soo gaday marka waa mahadsan yahay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan magacaygu waa Cabdinaasir Salaad Yuusuf degan magaalada Kismaayo maamul gobolka Jubbaland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay wax aan la filayn ama aan hore dadka bulshada way soo baran maamul goboleeda hore aan looga baran madaxweyne maamul goboleeda intaas oo sano kaliya joogay meel colaade ay ragaadeen inuu diyaarad soo gado waxay ku tusaysaa macnaha in horumarka Jubbaland uu ku socdo si xawliya dowladda federaalkana waxaan leenahay war maamulka adaa xukuma hoos wax u dhig bal xaalad mas'uul madaxweynaha Soomaaliya tahay hooyadii baa taa laga maarmo laakiin Jubbaland ku qiimay nabadda ahmiyadda ay siisay horumarka heerka aan ka taaganahay marka wax la fili kara ma aha maanta aan soo galay birin waxa ku xiga tii weyneed oo aad soo qaadaysay xataa bawrta soo qaadayso la qaysa ku jirta marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay hambalyo leenahay Jubbaland state ilaahay garabkeeda ha galo cadawgana Allah ka qabto waan ugu faraxsanahay horumarka ay gaartay